magaalada Buuhoodle waxaa shir ku yeeshay Cuqaal iyo waxgarad ka soo jeeda qaar ka mid ah beelaha deegaanka Buuhoodle gaar ahaan beesha Cali Gari Axmed waxayna waxgaradkan ay filan ugu dareen maamulka Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inuu xabsiga ka sii daayo Ibrahim Cali Kanaaco ku xiran magaalada Hargeysa in muddo ah kana mid ahaa ganacsatada deegaanka Buuhoodle waxayna Cuqaashan waxgaradkan ay sheegeen in maxkamadda soo taago haddii uu dambi leeyahay haddii kalena xorriyadiisa dib loogu soo celiyo waxaana ka mid ah hadaladoodii bismillah alxamdulillah وبه نستعين على أمور الدنيا والدين halkan waxa caawa isugu yimi anagoo ah odayaal kamid ah odayaasha dhaqanka ee reer Buuhoodle waxaan halkan ka soo gudbinaynaa codsigaas aan u gudbinayno maamulka Soomaaliland ilaa heer madaxweyne ilaa golayaasha sharci dejinta waxaan codsanaynaa Ibrahim Cali Kanaaco oo ah ganacsade reer Hargeysa ah waadi muddo badan deganaa daadiisu tahay 60 jir aan wax dambi oo dalka iyo dadka ka galay inta uu deganaa deegaankaas aanaysan jirin ku xiran saldhigga CID ee Hargeysa muddo 40 cisho gaadha waxaan codsanaynaa oo maamulka Soomaaliland ilaa heer madaxweyne ilaa hay'adaha sharci dejinta iyo garsoorka waxaan ka codsanaynaa Ibrahim Cali Kanaaco hadii uu yahay dambiile dadka iyo ashqaas gaar ah mid kasta dambi ka galay hadii yahay nin dambiile in la hor keeno sharciga oo lagu xukumo dambiga isaga uu geystay baanu codsanaynaa hadii kale oo in xuquuqdiisa iyo xornimadiisa loo sii daayo muddo 40 casho ka badan buu ku xiran yahay saldhigga Hargeysa ee CID-da wax loo qabsaday iyo wax dambi uu galayna ma ogin haddaanu nahay eheladiisii waxaanu codsanaynaa oo maamulka guud ahaan iyo gaar ahaan laamaha ku shaqaaleeya aan ka codsanaynaa in muwaadinkaas loo sii daayo xornimadiisii marka hore sida odayaasha hore u sheegeen odayaashaasi hadalkii ay ku hadleen baan raacsanahay kulli ahaan haddii aan sii taabto sida loo sheegay Ibrahim Cali Kanaaco muddadiisa la soo sheegay lama sheegayo muddada uu xidhnaa 40 casho inuu xiran yahay muddo gaadha wadani ahaa ganacsade ahaa ciyaalkiisa u xamaalan jiray ilaa haddeerna wax dambi ah uu leeyahay anagu aanan war ka hayn haddii aanu nahay eheladiisii waxaanu sidii ragga horeba u sheegay ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland ilaa heer madaxweyne golaha deegaanka xubnaheeda oo dhan ninkaas Ibrahim Cali Kanaaco oo 40 casho imka xorriyad la'aan ku xiran sida la sheegayo xogaalu soo sheegay in haddii uu dambiile yahay oo dowladda dambi ka galay ama dad kale ka galay ama dalka ka galay maxkamad la taago dastuuriga oo dambigiisa lagu qaado waan ku qanacsanahay taas hadday dhacdo haddii uusan dambi lahayn in xorriyadiisa loo soo celiyo ciyaalkiisa waxa maashay oo la fasaxo wassalaamu calaykum innagoo ah odayaasha Cuqaasha waxgaradka reer Buuhoodle khaasiyan kuwa reer Cali Gari meesha waxaanu isugu nimi xariga Ibrahim Cali Kanaaco oo Hargeysa ku xiran xafiiska CID-da ku xiran muddo 40 casho ah wax maxkamadana aan la keenin waxaanu dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa hay'adaha sharciga iyo kuwa amniga iyo ilaa heer madaxweyne iyo cid kasta oo ay qusayso arintaasi in ka maxkamadda la keeno hadduu dambi dowladda ka kale ama cid kaleba ka galay dambigiisa lagu qaado haddii uusan dambi lahayn xorriyadiisii loo soo daayo dhaqameedka reer Buuhoodle ama Sheekh Cali Gari waxaan codsanaynaa Ibrahim Xasan Cali Kanaaco oo ku xiran Hargeysa waxaan ku codsanaynaa dowladda iyo madaxweynaha haddii dambi ka galay dalka iyo dambi ka galay dalkana maxkamadda sharciga Islaamiga in la keeno in dambigiisa lagu qaado haddii uusan ka galin in danihiisa loo soo daayo dowladda ka codsanaynaa iyo madaxweynaha haddaanu nahay oday dhaqameedka reer Cali Gari reer ahaaneed odayaasha reer Buuhoodle dhammaan kaftamo waxay la tahay waa la dhageysanayaa waana la daawanayaa maamulka Soomaaliland mala ictiraafkiisu cadaaladu ku jiray wayba ilaa weero meelaha kale in laga hadlaba
ما هي عدالة كتيرة وكتيرة اعتراف وحال غيرتها أمضة هي عدالة لغيرتها سكستو دمبير وياي هدان أمضة لقنعين أو قفك لقنعين أولياسي أيدي يحبوك حريسين يحي هل كاسا لغو حري هل كا لغو حري وحوي وح حقوق القرن إذا كان عدالة دينة ويكون حمانس بيكون حمانس وحانو لنا هيدنا كالي هذا إبراهيم علي محمد أو إبراهيم علي كان علو يقانو ومقال مدح للتوغي إلى من كذا إن هذا عدالة محكمة كين محيوة كان يسمرك وحوي يدلك بولي اللوسية قف كلية أو بني آدم أو حقوق ليس إلا هو قف ولو بأدو اسم لسان وعلى عشان سبحان الله دكتور ورقة الفيش عالمي اسمانو نيوس مقالة بوهول